maxkamadda ciidamada qalabka sida xafiiskeeda gobolka Hiiraan ayaa maanta xukunno isugu jira xabsiyo iyo xukun dil ah ku riday 5 ruux oo xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyay inay galeen dambiye kala duwan. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xafiiskeeda gobolka Hiiraan Cabdicasiis Cabdullaahi Xasan ayaa ku dhawaaqay xukunnada. ujeedada xukun maxkamadeed maalinta ay bishu ahayd 25 bishii shanaad 2015 maxkamadda ciidamada qalabka sida darajadeeda koowaad gobolka Hiiraan waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Shabaab Xuseen Hilowle Gaabow 34 jir ah ina Faadimo Cali Toxab ku dhashay Shabeellada Dhexe degan Mahaday kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu soo weeraray difaaca Guufaale ayna soo qabteen ciidanka ka tirsan guutada tobnaad asagoo dhaawaca. maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayadda 33 suuratu al-Maa'ida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la akhriyo qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalkii eedeysanaha uu ka hor qirtay inuu shabaab ahaa markay dhageysatay doodii qaranka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududeeyo sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysane Shabaab Xuseen Hilowle Gaabow yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho cid aan ku qanacsanay waxa u furan tacfaan. saddex kamid ah eedeysanayaasha ayaa lagu soo eedeeyay in ay dhigteen jidgooyo ayaa waxa maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah. sidoo kale Faarax Isaaq Nuur oo ka tirsan maleeshiyada Ugus oo xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyay in uu aabiis ku riday 4 xabadood oo uu doonayay inuu ku dilo ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah. Cabdishakuur Ismaan Cali SNTV Beledweyne.